بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن داودياشي ذا قيمة يقايا هالي waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc ku saabsan jaceylka horena wax waan uga soo hadlay xiriirka iyo dhalinyarada haasabaha laakiin waxaan rabaa inaan focuska saaro galabta si gaar ah xiriirka dadka uu ka dhaxeeyo mararka qaar waxaa dhacdo in la kala xanaaqo haddaba maxaa loo baahan yahay labada qof ee xiriir ka dhaxeeyo markii ay timaado xaalad xanaaq waxaa lama huraan ah bini aadanka markii ay wax isku darsadaan waxay doonaanba ha ahaadaane in ay cilad imaanayso xanaaqana wuxuu ka mid yahay ciladaha imaanaya sidaasi daraadeed haddii aad kala xanaaqdaan lamaankaaga ama lamaantaada isku day inaad dib u raacdid sababta keentay waxyaabihii aad ku kala xanaaqdeen inta badan dhalinyaradana Soomaaliyeed waxa caado ka dhigteen markii ay xanaaqaan qof walba inuu isaga kaligiis buur is saaro oo dhaho maxaa dhacay aniga maxaa sidaas iigu sameynaysaa gabadhan ama gabadha tira maxaa aniga wiilkaas uu saas iigu sameynayaa aniga qof walba aniga taasina meesha ay ka baxayso waqtigii qurux badnaa qofkaas la soo qaateen qiimihii xiriirkiina uu lahaa muddadii aas jeclaadeen sidaas daraadeed waxaaba imaanaysa in lagu kala tagabo horaantiiba iyadoo aan dib loo raacin laakiin waxaa wanaagsan in dib loo fiiriyo waxyaabihii sababay xanaaqaas kadibna go'aan mideysan laga wada qaato waa in uu qofkiin baaraa sababta keentay inaad kala xanaaqdaan waxyaabihii lagu kala xanaaqay haddii ay yihiin wax lagu kala xanaaqi karo amaba lagu kala tegi karo laba qof ee ku kala go'i karto in dib loo baaro lagana fakaro lana fiiriyo muhiimadda xiriirkiina oo idin lahaa haddii la isku tanaasuli karana aad ayay uga sii qurux badan tahay waxaa meesha ka maran oo aysan dhalinyarada ku dhaqmin waxa la yiraahdo raaligelinta ogsoonow raaligelinta waa u muhiim xiriirka maxaa yeelay dadka xiriirku ka dhaxeeyo hadiisan israaligelinin waxba uma hagaagayaan waxaa laga rabaa qofka xiriirku kala dhaxeeyna oo tagtid aad tiraahdid waan ka qaldanahay sorry waxaas sababtooda ana lahaa saas ayaan ku imaaday haddana waa ka raaligelinayaa meeshaas waxaa ka dhalanayo xiriirkii shalay meeshaas ka jiray mid ka sii wanaagsan oo ka sii qurux badan oo ka sii balaaran xaqiiqataas ah kadib waxaa imaanaysa qofkii asagana la raaligeliyay inuu garwaaqsado oo isagana ku raaligeliyo uu ku dhaho amaba ay ku dhaxdo okay waan ka qaatay raaligelinta anigana waan ka raaligelinayaa waxaa meeshaas lagu gudbayaa isku dhacyadii ama xanaaqii sii socon lahaa amaba colaadii la isku qabi lahaa ama hadaladii qalqaldanaa ee la isku soo gudbinayay ama fariin hal isugu soo qoro ama hal is soo waco oo kale ama hal iska hor yimaado gafuurka hal isku taago meeshaas way ka baxayaan marka raaligelin ay timaado waxay imaanaysaa yaa yaqaana waxay imaanaysaa farxada imaanaysa waa la isku farxayaa hadiyada imaanayso dadka qaab kala gadisan ay isku raaligeliyaan dad si surprise ah ay hadiyad isugu keenaan oo si lama filaan ah oo hadiyad raaligelin ah dad way soo wacaan iga raali ahaa qaladkaas anaa islaha dad way isu yimaadaan oo lugahooda iyo waqtigooda ay isku soo raadsadaan waxay yiraahdaan waxaan kuugu imid in aan ka raali geliyo qaladkii aan ka galay maalinta dhaweeto amaba aad iga gashay wuxuu doona ha ahaado marka ogsoonow dadka raali gelinta bixiyo waa dadka ugu qalbiyada fiican marka la fiiriyo xagga qalbiyada dadka raali gelinta qaatana waa dadka ayagana ugu daacadsan xagga daacadnimada haddaba dhalinyaradena ha ku baraarugaan marka la kala xanaaqo xilliga xiriirka lagu jiro in aan laga maarmaan aysan ahayn in la israali geliyo si hawsha ay hore ugu socoto haddaba maxaa dhacay marka haddii aan la israali gelinin laba waxyaaloodba dadka ayagoo kala maarmin ayaa handana waxaa dhacaya in ay kala fogaadaan in muddo kala maqnaadaan qalbiyadooda kala jeestaan kalsoonidu way yaraanaysaa u fiirso dad qofka xiriirka uu kala dhaxeeyo marka aad kala xanaaqsantihiin wax walba dib ayay kula noqonayaan haddii wax barasho tahay haddii shaqo tahay qofba dabeecad uu leeyahay haddii tahay howlo kaleeto inaba ma furfurnaanaysid farxadaadii sheekadaadii waxyaabihii lagu yaqaanay meesha ka baxayaan because waxaa tahay qof ay wax ka dhiman yihiin qof wax kala tabsanaya ayaa tahay marka waxaa wanaagsan marka la kala xanaaqo
in haddana la isku soo laabto maxaa yeelay insaan ayaa nahay daciif ayaa nahay allah subxaana wa tacaala ayay isku dhami ag taalaa raaligelinta waa muhiim raaligelinta waa muhiim waxayse kusii muhiimsan tahay dadka xaasaska ah oo reeraha leh oo guryaha leh ayay uga sii qurux badanta dadka xiriirka leh maxaa yeelay marka saygaada ama soojadaada aad dhahdid iga raali ahaaw waxaa meesha imaanaysa farxad lama filaan ah wax kastana waa ay qurux badnaanayaan sidaasi daraaddeed waxaan leeyahay asxaabteyda qiimaha iyo qaayaha leh waa ku mahadsantihiin sida wacan aad ula socotaan barnaamijyadeeda iyo fiidiyoyaasha ka baxaya youtube channelka Aamino Macalin wixii fikir ama talo ama tusaale ama su'aalaad qabtaan qaybta commentida iigu reeba insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan idin soo jawaabo haddii Ilaahay yiraahdo waa walaashiin Aamino Macalin oo idin leh waqtigu ha idin wacnaado meel walba aad joogtaan yaan la ilaawin markii uu qalad idinka dhaco inaad dhahdaan sorry aasif iga raali ahaaw wiil iyo gabar qofkaad doontid ahaaw ha iloobin raaligelinta